درتان diyaaradii way wixii ku soo kordha iyo xaaladda saay noqonaysa waad ogaan doontaan freeway ya diga mada ya waa u jeedin xaaladda way ka sii daraysaa jabiga ma sahlano ninka maanta kitaabka soo qaaday oo rabay inuu gubo garab ayaa lagu siinayey ciidan baa loo yeeray waa la ilaalinayay laakiin ilaahay nasrigiisa waxaa ka dhiidhiyey muslimiinta waddankan ku nool iyo Soomaalida anagoo isku duuban halkaas u jeedin waa ciidankii booliska Daanishka iyo militariga Daanishka iyo booliska Swedishka waaye waa kay kaamiradan u dhabeeyay waa u jeedin laarmiga gaariga ciidanka waa u jeedin lama oga waxay ku soo maqan yihiin wax samaafara shaqeynayo kaamirooyinkii dhan wax samaafara shaqeynaya ma jiro kaamirooyinkii dhan waa lala baxay oo anagaa cunnay waan ku cashaynay kaamirooyinkii wax walbo dad duubi lahaa anagaa siibanay Soomaalida maasha Allah iyo Carabta way ka dhiidhiyeen gaar ahaan qoomiyadaha reer Iraq ayday ahaan lahayn Kurdi Sunni iyo Shiica baday ahaan lahayn way soo baxeen dhamaantooda maasha Allah wixii kale oo ku soo kordha walaal halkan waa caasimad saddexaad oo waddanka Sweden waa xuduudka Denmark magaalo ku taalo Swedishka inay dadkan ka hor imaan kari waayeen ayay ciidan Daanisha soo kaxeysteen oo booliis ah military aan iraade booliis militaarka ah koofi gaduud ah loo yaqaano ayay soo kaxeysteen xaggan waxa ka mid ah meesha ka kale ya what's up nigga dukaaman qaar ayaa waxa ka bilowday sababtoo ah diinta Ilaahay waddankan fiiri muslimiinta ku nool way shaqeeyaan canshuur bay bixiyaan dadka canshuurtaas dadka muslimiinta laga qaadayo waxa lagu maalgeliyaa xarumaha Kirishtaanka ayaa lagu maalgeliyaa taas iyadoo loo dul qaadanayay oo Soomaalida la yiri iyo Carabta kale meeshan ku nool halaga yareeyo iskoolaadka oo madrasooyinka Quraanka lagu barto hala yareeyaa la yiri Swedishka ku kala qaybsamay gaalada waxay yiraahdeen dad Kirishtaan waxaan u ogolaanaynaa anaga dan Kirishtaan nahay canshuur aan muslimiinka qaadana xarumaheena ku maalgelinaynaa xarumihii masaajidada iyo meelaha Quraanka Soomaalida iyo Carabta kale ay wax ku baranayeen lacagta aan ka qaadnan anaga isku maalgelinayna ayagan xarumahooda miyaan joojin karnaa waa may waxyaabo badan ayaa meeshan ka dhici doono wixii dhacay ay ka digayeen maanta way dhacday taas way ka soo tagtay sida uu soo socotay maanta nin baa kitaab Quraan inta wiigii hore uu sheegay jimcadan baan gubaya ayuu yiri masjidka weyn oo hadda beertan ka dambeeyo masjidka weyn oo beertan wixii ka dambeeyo gadaasheeda ku yaalo ayaa la isku dayay in la geeyo kitaabka dadka hortood in lagu gubo way noqon weeday maanta way la dhuunteen wuu qudbaday ciidan baa soo kax laakiin ma dhicin inuu gubo marka caawa waxa ka dhacday magaalada wixii joogay waliba beriyay ka sii darantahay xaaladda way ka sii dareysaa way ka dhiidhiyeen wixii samaafar aha shaqeynay Cabdiraxiin Daafeedo in adeer xaafad meeshan waa meeshaad soo martay bartan adiga hadda aan taaganahay waa meeshaad gaariga la timaaday hadda ka hor gurigiina waa kay oo aad joogtay maalintii waa kay Cabdiraxiin Daafeedo gurigii aad joogtayna waa ka oo aan tagaynay baarkinka kalena waa baarkin kale gaariga ku yaalay ani adiga iyo macallin Kulundi ma fahamtay marka dadkii waxay sameeyeen waxay ku dadaaleen in ay ka dhiidhiyaan ilaa iyo 8 diyaarado ah ayaa dul taagnaa military ah laakiin diyaaradihii way dhaqaajiyeen laakiin dadkan hadeertan halkan waxa taagan halkan haddaan sii fadhiisto wadada hoosteeda oon kaamirada u sii dhaweeyo
oo aan kaamirada u sii dhaweeyo halkaas u jeedino kaamirada idinka muuqato waxaa jooga ciidan military ah iyo booliis oo maadaama magaaladan caasimadda saddexaad ay tahay magaalada tan xuduudka Denmarkna ay ku taalo ciidan ayay soo kaxeysteen ciidankii ayaa halkaa jooga Allahu akbar takbir takbir marka Soomaalida ayaa halkaa isugu soo baxday Arab ayagoon loo kala qaadin sunni ama shiico ya anaga caaw ka talnaawi wuxuu ka mid yahay odayaasha magaalada uu ka mid yahay nuux walaalkay maxaa kale leedahay arintan live waxa ku daawanayso 162 qofood bismillaahir rahmaanir rahiim arinta horta waa maanta dhacdo xun dhacday laakiin anaga waajibkiina saarnay waa ka bixinay nacam ma sha Allah ay xaq nagu lahay ha ilaa hadda yartaana waxaan diyaar u nahay inaan difaacno kalimadda ilaahay ha soo baxsan inaan difaacno ha daanishka ciidanka keenayna leeyahay halkan igu aadi قاعدة وأوجدين مشان ضد ما لقوا بوا بقلي يا نقوم فيلنا حالة ويكسي دريسا بوليس نواكا بوليس عيدك واكواي دانش ما سوقلي دانش ما يمادي ها أيقو الله بقولوا جاري كبدن بحد ساق وسوق شو سيدي لعدي وساقوا مني وضدنا يمرين مركب ما شاء الله حالة ويسيس عن دونتا إلا الله أكبر مركب حلقة ديو مظاهرات kale ayaa magaalada geesaheeda kala filaya saacadaha soo socda inuu ka sii bilaabmo hurduwa ayaa la yiraahdaa way isku raaceen walaal xildhibaan fuuqsada way isku raaceen sababta muslimiintu waxay bixiyeen dadka muslimiinta waxay bixiyeen digniin ah yaan lagu dhaqaaqin iyo wax noocaas la yiri waa la iska dhaga tiray waxaan uu qarxayaa daakis balquunan maanan marka way ka sii dareen way diideen waxay diideen wiilka hooyo halkan waa caasimad saddexaad oo Sweden waa caasimad saddexaad oo Sweden weeye magaalada la yiraahdo Malmo ayay ka dhacday xuduudka Denmark magaalo saaran weeye magaalada asal ahaan daanishka Denmark iska laakiin Swedish way iska heestaan marka intaas ayaa xaaladda ku sidoo wax yar ma ahan kitaabka Quraanka oo 2 bilyan ummadood caalamka islaami ku nool ayaa aaminsan in la gubo shakhsi inuu gubo oo raali looga noqdo ayagoo wali dadkii diintaas aaminsanana canshuur laga qaadayo oo ay canshuurta laga qaadayana lagu dhiso wadooyinka lagu dhiso kaniisadaha ay nasaarada ku tukato markii saas darteed dadku way ka dhiidhiyeen wadadan waxay ahayd meelaha ugu quruxda badan ugu fiyaalada badan ee wadadan waxay ahayd meelaha maxaan ku yiraahdaa ay dadka faras magaalaha ay ahayd kamid ah caawana waa ka saa ay xaaladeeda u sii babanaysaa xaaladda cirka isku sii shareertay maanta markii ay sameeyeen kaaloriya maanta markii ay sameeyeen rag hubaysan oo gaangi ah oo Soomaali iyo Carab isugu jiro rag Soomaali Carab isugu jiro oo biskoolada heestaan ayaa maanta waxay rabeen ninka inay dilaan laakiin waa laga qabtay oo anigu goobjoog kuma ahayn laakiin sida jaraa'idada waxay qaar ay sheegeen in waxa dhacday in dadkii dilka raba inay ninkaas dilaanna ay booliska wax rasaas dhaafsadeen nimankii gaangiska ah Soomaalida iyo Carabta ahaa oo raba ninka inay dilaan halkan waa caasimadda caasimad saddexaad oo waddanka Sweden so the situation is not quiet tonight marka xaaladda waa ceenka wa alaykum salaam wa rahmatullahi dhamaantiin soo gala wara drones Vem is den drones? Det svenska kriget. Drones ala soo kiciyay. Drones ana dul taagan waatan. Drones. Marka baatay drones ana dul taagan
ما لقوا ما حد قد بيعد لقوا حد قد باي مجرى حد قد بيش مياله إن هذا وحويان حالة وحيتهاي حالة وحيتهاي dadka in ay muujiyaan sababtoo ah haddii Kristaan iyo Nasaare iyo Yahuud haddii Nasaare iyo Kristaan hadday aaminsan yihiin Bible-ka hadday aaminsan yihiin Bible-ka anagana waxaan aaminsanahay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah oo 1400 sano ka hor Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam ku soo degay oo diinta kaliya xaq ah oo Ilaahay xaq lagu caabudo kelmadiisa ay tahay ay shariicadiisa tahay ayaan aaminsanahay marka marqaati baad ka noqonaysaa meel kitaab quraanka lagu gubay hadaadan ka dhigin adiga qof islaam ah adduunkan waa takbiir 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 وودنك عاصمة لبعض ودنك السويدن ما قرتين ماشان عاود جوجنا واكو عندنا يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله diyaaradii hadda mar waad soo kacay wayna gaaf wareegayaan waxaan u jeedin qiiqa baxayaad u jeedaan iyo wax magaalada ka socdo waxay ka mid yihiin waxyaabaha caaba laba filaanka ah ayna ayaga marnaba niyada iska gelinin inay arrimahan saan noqdaaniin laakiin dadkii islaamka halkaan isugu yimaaday ayaa ka dhiidhiyey sheerta u qabta شيرته وقبته الله نبيك يا قرآن بالروح والدم نبيك يا قرآن dadka waxay ku qalinayaan ruuxayni iyo dhiigayni adiga ayaan ku xureynaa kitaabka quraanka ay leeyihiin biruux wadam nabiik ya quraan marka xaaladda takbiir daqiiqada ka sii dambaysa way iska soo taraysaa xaaladda way iska soo tarayaan dadka xaaladda aad bay ugu sii xun tahay لايفكا كوجيتا على كوجيدا ها maxaa ka leedahay magaaladan maanta waxa ka dhahay kalimadan kitaabka quraan kariimka isku dayeen inay dadkan gubaan ay xaaladan hadda la saadaalin kariisa ku dambeyn doonto maxaa leedahay wallahi waxa waaye horta hore soo bax weyn aan sameynaa muslimiinta Soomaalida aan iyo Carabtaba magaaladan degan wadanka degan waxa ka dhacayna oo ujeedin waxa waaye hadda sheeko kala keenaan wadankooda joogna laakiin waa la jeeday inta soo gashay barnaamijka adaan idinka daba geeyo maadaama meesha aan mawduucan ku soo qorin waxay tahay maanta ayaa kitaab quraan kariimka la isku dayay in magaaladan lagu gubo ayna ku dhiiradeen booliskii hadda soo galay ciidan baa hadda soo socda ciidana soo socda marka ciidan baa soo socda takbiir marka maanta waxay isku dayeen inay kitaabka quraan kariimka ay halkan ku gubaan dad gaalo ah marka بوليس وحال صوت محل صوتوري بعدت marka kitaabkii quraanka maanta lagu waayay ayay dadka ka dhiidhinayaan maanta public hortada lagu gubi rabay kitaabka quraanka kariimka ah marka saas darteeda ya fiirhuna dhamaan qursomdam ya de life ya so marka maanta kitaabka ay maanta gubayeen ayay dadka ka dhiidhinayaan mawduuc meesha kuma soo qorin soo dhawaada ii share garay barnaamijka idinkoo mahadsan takbir
now anaga ma gubayno bible iyo wax noocaas ah walaalkayga xildhibaan fuuqsada never absolutely waan ku tixgelinaynaa ay kitaabkooda iyo bible-kan aaminsan yihiin laakiin kanaan anaga aaminsannahay diyaarada ayaa soo kacay kanaan anaga aaminsannahay ma galo cayaar negotiationna ma galo khayru khalqillah ayaa loo soo dhiibay 1400 sano ka hor asaga aynu ku soo degtay haddana ma galo wada hadal ay negotiation kama galeen kitaabka quraanka kariimka ah saas darteeda marka dadka islaamka halka isugu soo baxay way ka dhiidhiyeen lama saadaalin karo xaaladda saa isu bedeli doonto biri wixii ka dambeeya maadaama afarta dhinac ciidan ay naga soo dhigeen haddaan waddada idinkugu aadiyo ha waa life waaye haddaan waddada idinkugu